وسيله وزارة الدولة واد أحمد علي باين يا قاري حاجده واي حكومة الجمهورية الصومالية lagu tala gashay ciidanka booliska degmada Garda ku wareejiyay munaasabadii lagu wareejinay gaarigan oo ay ka soo qayb galeen Suldaan Carab Cabdi Cali Chief Caaqil Cabdishiid Ducaali Cilmi xogayaha guud ee golaha baarlamaanka Cabdisaaq Siciid Haale cuqaal iyo waayeel iyo xgarad kale maarka degmada Garda qorbajoog dhamaantoodba ka waramay ahmiyadda uu gaarigan u leeyahay ciidanka booliska isla markaana sheegay inay ciidanka boolisku u baahnayeen gaarigan deegaanka degmada Garda ay ka jirtay baahi weyn oo dhanka gaadiidka kaasoo degmada Garda ay hoos tagaan badheen tuulooyin fara badan iyo deegaano fara badan ugu horeyntii waxa ka hadlay maarka degmada Garda oo ka warbixiyay gaarigan iyo deegaanka degmada Garda ba munisatan aan ugu mahad celinayna gaariga booliska ma garanaysaa degmada Garda ay soo siisay xukuumadda Soomaaliland iyo taliska booliska runtii degmada soo gaaray maanta oo wado wasiirku aad baan uga mahad celinaa doontaan deegaanka sababtoo ah waxa weeye waxa jirta baahidiisii amninimo ama gaadiidnimo ayuu qayb ka yahay oo degmada waxa weeye looga baahnaa runtii waxa weeye dawladda Soomaaliland aan goobjoog u ahaado oo la isku wareejinayo gaarigaas aad aragtaan oo wax weyn ka tari doona baahidii ay saldhigani u qabay maxay tahay hawlaha hadba la soo dirsan waxaan filayaa inuu wax weyn ka tari doono qof kasta oo reer Gardaga ama qurbaha joogo ama dalka waynaanu mahad celinaa aad baan ugu mahad celinaynaa dhamaantayo anagu hadaan qurba joog lahayna kulli dalka waanu jecelahay inuu wax ka qabsado inuu u kordhano waanu jecelahay aad iyo aad wadi salaamaya xisbiga kulmiye waxaanu doonaynaa berito waa maalintii doorashada 13 bisha waa maalintii kala baxa reer Garda meel kasta aynu joogno inaynu ku saabsan wareejinta gaarigan soo keenay degmada cid alla cid ka soo shaqeysay wasiir dawladda ugu horeeyo wasiirka madaxtooyada taliyaha ciidanka booliska dhammaantoodba aad baan arrinta maxaan uga mahad celinaynaa saldhigan Garda ugu baahnaa gaarigan waa degmo aad u ballaaran oo maxaan ku dhahdaay deegaankeeda iyo dadkeedu aad u badan yihiin waan ka mahad celinaynaa wasiirka dawladda booliska wada iyo odayaasha kale siyaasiyiinta ee la socda gaariga ay noo keeneen iyo xukuumadda ciidanka booliska ay noo keentay xukuumadda si aanu shaqadayadii awalba diwaan shaqayna kor ugu sii qaadno aad iyo aad baan wasiirka ugu mahad celinaynaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xil weyn iska saartay in doorashadan sideeda oo qabsanto haday noqoto diyaarinta imkaaniyaadkii iyo wixii loo baahnaa in doorasho lagu qabto bulshada la hawlgeliyay amniga dawladda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ay bisha 12 tahay waxaanu degmada Garda ciidankeeda booliska ku wareejinaynaa gaari ka hawlgala halkan oo ay soo bixisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland marka koobaad waxaan halkan baa uga dirayaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan degmada Garda iyo gobolka Sanaag in doorashada berita dhaci doonta lagu galo hab amniya gaariga kan wanaagsan ee wasiirku keenay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa kii hore malaajeestay ama jeesan doono inuu ka hore ana keenay inaan wax iga furta helo oo raga helo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan gaarigaasu ma hawl yara Omar Sere urbaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garda